عشقوك قضي وكلي عقلي قيدي حسوسك عسومني إلا داوه الموديسان موديسان إلا داوه الموديسان صفيا هاي عشقوك قضي وكلي عقلي قيدي حسوسك عسومني إلا داوه الموديسان موديسان إلا داوه الموديسان عابن وحان كوكو إيدي عابن المدى عشبان كويدي لبتنا عليبان كويدي عوانا تشبان كويدي عوانا تشبان كويدي عابن وحان كوكو إيدي عابن المدى عشبان كويدي لبتنا عليبان كويدي عوانا تشبان كويدي عوانا تشبان كويدي بسم الله الرحمن الرحيم واحد ترتي بريهان دنبه هاس aad ay ugu soo badatay hadalhaynteedu bulshada Soomaalida heesta la yiraahdo nolosha cusub soo dhaweey heesta waxa nin baa yiri heestaas waa qalad waxa la yiraahdaan Soomaalida waxa ku maamay jirtay aqoontaada oo yar aamus baa lagu qabaa ninkaas inta aanu heesta ka hadal bulshada Soomaalida waxa taqaanina nin aqoonyahana laakiin hadalkiisii waa ka shaqeey waxaan u sheegayaa suugaanta marka la saxayo ama la qaldayo waxa jira xeer baa sax ka dhiga hadii xeerka la waafajiyana sax bay noqotaa hadii xeerka la waafajin waayana qalad bay noqotaa bilmatal heestan nolosha cusub soo dhaweey marka la eego godka marka la eego miisaankeeda marka la eego habdhaceeda marka la eego xaraf raaceeda marka la eego qaafiyada intuba waa sax tusaale ahaan godka heesta ay ka tirsan tahay hadii aan idin sheego waa god dhaqameed caan ah oo suugaanta Soomaalida aad ugu badan waa godka la yiraahdo baarcada miisaankiisuna waa 12 ama shaqalada ku jira waa inay noqdaan 12 shaqal heesta miisaankeedu godka uu ku fadhiyaa oo waa in shaqalada ku jira ay noqdaan 12 shaqal hal shaqal oo dhexda inay shanna ka dambeeyaan shanna ay ka horeeyaan miisaankeedu iyo godkeedu waa sax xaraf raaceeda ama qaafiyadeeduna waa ereyga oo sidii xeerka ahayd sadar kasto heesta kamida hal mar ku jira hadaba ninkan la yiraahdo Cabdigood wuxuu heesta waxa qalday ujeedada oo wuxuu abwaanku sawkii maarmay kaaba u tagay yiri kaaba hadana maxaa calaalka ku soo celiyay waxaan u sheegayaa sida laga hayo fanaanka heesta qaada oo xogagaalka labaad marka abwaanka laga yimaado habeenku soo bandhigay inuu sheegay in sanad iyo bad heesta kaaba ay heestani ka horeysay waxa kale oo uu sheegayaa abwaanku waa xor ujeedada uu heesta ka sameeyay lamana oran abwaan haduu mar forjo sameeyay dib uma calaacali karo lamana oran haduu abwaan mar calaacalo forjo iyo suugaan kala ma sameyn karo waxa weeyaan waxaan sheegayaa wakaalada uu ka hawl galo oo xushay inuu bulshada afka Soomaaliga ku hadasha wixii kaliya hanti u lahayd oo yiraahdo waxa sheegaya qodobadeeda afka Soomaaliga waa hantida kaliya ummadda Soomaaliyeed leedahay intuu si qalad ah ummadda u gaarsiin lahaa in loo yeero cid si sax ah ummadda u gaarsiisa ama isaga wax la baro oo inta dib wax loo baro la yiraahdo marka wixii la baro baa waxaan sheegayaa ninka heesta sameeyay abwaan Cabdirasaaq Xaamid Cadiid Jeylaani inuu yahay nin farshaxana oo daayara heesiisuna ay heesa xuleeyeen heestuna ay sax tahay wax qaladina aanay ku jirin hadii uu ninkan aqoon leeyahay ama wax qaldayo wuxuu oran lahaa heesta xeerkeedaas ama qaafiyadeeda qaldan buu oran lahaa ama miisaankeeda qaldan ama xaraf raaceeda qaldan
intuna waa sax intaba isagoo ka indhala ayaa wuxuu abaaraya ama toos weerar ujeedada abwaanku uu kaleeyay ujeedadana nin walba xor buu yahay sugaantuna waxay la aragti tahay kolba dareenka jira kolba waayaha jira ayay la aragti tahay shalay waxaad si weerarkiisa maanta si weerarkiisa shalay adigoo calaacalay baad maanta sareedo helaysaa adoo shalay sareedo haystay baad maanta waayayso calaacalaysa marka ma aha wax la yiraahdo qalad noqon kara abwaanku dareen kasta uu kees kara heestuna waa sax waa hees aad u qurux badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.